بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa xaraf.com ee college-ka caalamiga ee xaraf international college xaruntiisa Nairobi. ku soo dhawaada casharkeena isbuuclaha oo ay nooga barateen in halkan kiiga soo gudbino habeen walba oo Jimcaha. casharkeena waxaan ku eegaynaa sida aad video u soo gashin kartid aalada YouTube-ka. waxaan ognahay in YouTube-ka videoyo aad u fara badan ay ku jiraan isla markaana laga daawado. sidee ma usoo gashan karnaa annaga video aan leenahay oo aan samaysanay aalada YouTube-ka si dunida dacaladeeda looga daawado. cashirkeena waxaan la socodsiinayaa alaabaan halkan kala socodsiiya anigoo ah Yusuf Sheekh Ahmed. cashirkeena hore u galno marka aad rabtid in aad YouTube gelisid video waxaa laga maarmaan ah in aad account ku leedahay shirkadda Google. waxaan ognahay YouTube inay leedahay shirkadda Google oo ay ugu talagashay in videoyada la geliyo. sidaa darteed waa inaad account ku leedahay shirkadda Google kaasoo la yiraahdo Gmail. isbuucii hore cashirkii ka horreeyay waxaan kusoo qaadanay sida Gmail loo samaysto kaasoo aad dib uga heli kartiin cashirkii ka horreeyay haddii aad u baahan tihiin inaad baratiin. waxaan soo gelaynaa YouTube-ka annagoo maskaxda ku hayna in aan leenahay account ku leenahay Google. markaan soo galna kadib geeskaas ayaan tagaynaa waxaan ku dhufanaynaa sign in meeshay ku qoran tahay ayaan ku dhufanaynaa oo macnaheedu yahay waxaan rabaa inaan account-kayga soo furto. qof walba account-kii uu sameystay ayuu halkan gelinaya aniga account hadda waan soo galay oo account-kayga ayaan ku jiraa. waxaan ku fahmi kartaa calaamadaada ayaa mar walba xagga saarnaa doonta geeska saddex tagtid oo ku dhufatid sign out hatta aan dhigi karno markaan rabno inaan ka baxno. markii aan soo galno kadib waxaan ku dhufanaynaa geeskaas oo ay ku qoran tahay upload ay ku qoran tahay. upload markaan ku dhufano waxayna keeni doonaa shaashadan laba option ayaa video-ga u keeni kartaa. waa meesha video-ga la soo gelin lahay. option-ka koowaad waxa weeyaan inaan ku dul dhufano kadibna video-gii soo dooranno. kan labaadna waxa weeyaan in aan ku soo jiidno video-ga oo halkaan aan soo dhigno. labadaas ayaa inoo furan. waa ku dul dhufano annaga option-ka ku dul dhufashada aan qaadan oo ku dhufanayna. markaan ku dhufano kadib wuxuuna geenayaa meeshii location-kii oo file-ku noo yaala ayaa raadsanaysaa. aniga desktop-ku ii saaran yahay kadibna Soomaaliya ayaan rabaa inaan video ku saabsan oo calanka ka hadlayo inaan tusaale ahaan u isticmaalno. dooranaysa kadibna open kadib wuxuu bilaabayaa uploading oo ah ku shubitaanka oo ku shubayo YouTube soo gelinayo filmkan ama videogan. intuu soo gelinayo aan sharaxaad ka bixino waxyaabaha aan hoose laba qaybood ayuu leeyahay oo kala basic iyo advance. basic aan ku bilaawno. basic waxyaabaha ugu horeeya waxa weeyaan waa inaad gelisaa maxaa dadku markay raadinayaan video-gaaga magacay ku raadinayaan magaca u bixinaysaa. tusaale waxaan dhahaynaa stanta calanka Soomaaliya. kadib meeshan waa qeexitaankii ama description-kii ku qor adiga wixii markaas description ku ah tan waa information-keena ama iskuulka waa gelin kartaa. qaybtan kale ku xigta waxaa la yiraahdaa waa meeshii tagging-ka. tagging waa qof walba uu yaqaanaa Facebook ayaa ku naqaanaa. tagging waxa weeyaan markii aan ku qorno video-geena haddaan qorno Soomaaliya inuu video-gan soo baxo. tusaale ahaan magacyada markii la qoro aad rabtid inuu video-gaaga soo baxo ayaa qoraysaa. astaanta markii aan qoro waxaan rabaa inuu video-gaana soo baxo. haddii la qoro calanka inuu video-geena soo baxo. qof walba YouTube-ka ku qoraa calanka ama astaanta ama hebel inuu soo baxo. halkaana gelinaysaa. haddaan hadda qoro astaanta hadhow qofkii astaanta ku qoraa YouTube videoyadeena iyo videoyo kale dabcan dad kale astaanta ula baxay oo kale ayaa soo baxaya. sidoo kale meeshan waxaa ku qoran custom thumbnail. thumbnail waxa weeyaan videogaaga muuqaalka marka koowaad uu ku soo baxayo. waxaa kaloo jirta qaybtan ay ku qoran tahay public oo soo furi karnaa. wuxuu leeyahay public iyo unlisted iyo private. haddii aad videogaaga qaabka u rabtaa waxaa rabtaa inuu public noqdo mise private ka dhigan rabtaa oo ama unlisted. public haddaa rabtid dadka dhan aad daawanaya. haddaa private dooratid waxa weeyaan adoo gooni ku yahay. annaga public ka dhigayna kadib fariin ayaa ku dari kartaa videogaagan oo ah fadlan share gareeyo kale ama videogan wuxuu ku saabsan yahay sheegaysaa. waxaa kaloo jirta waxaad ku share gareyn kartaa qaybta la yiraahdo Google Plus oo Gmail-ka qayb kamid ah oo casharradana soo socda insha Allah aan ku qaadan doono iyo Twitter oo kale asna waa ku share gareyn kartaa kadib uu ka dhex muuqanaya. thumbnail-iska waa kuwana way noo soo bixin. thumbnail-ka misaan rabtaa inuu muuqdo misaan video-gaaga wuxuu ku bilaabanaya ayaa thumbnail baxa. waxaa kaloo dooran karnaa custom thumbnail
kaasoo ku siinayo option ah saddexdan midaan ahayn inaad soo dooratid oo adiga meesha soo dhigtid qaybtaas waa qaybta koowaad ee basiga qaybtan kale oo advanced setting ah iyadana waxyaabo badan ayaa ku jira oo videogeena saameynaya tusaale ahaan haddii aan rabno videogeena in aan comment laga bixinin waxaan ku dhufan karnaa TikTok ka qaadayna commentiska markaas wax comment ma laga bixin karo ama waxaan sameyn karnaa TikTok saarayna waxaan dhigi karnaa laba option aan la siinaa optionka hoose waxa weeyaan commentiga anaga proof gareynayno oo dhahayno commentiga waa ogolnahay iyo ma ogolin iyo dhammaantood waa ogolaanaysaa oo comment waa laga bixin karaa waxyaabaha kale muhiimka meeshan waxa weeyaan haddii aad rabto meeshan hoose oo age restriction ay ku qoran tahay tigan saari karnaa oo macnaheedu yahay da'da 18 wixii ka hooseeya ma daawan karnaa barnaamijkaygan waa haddii oo barnaamijka uu saas oo kale uu yahay soo kaasna waa age restriction oo dooran kartaa intaas kadib markii aad soo gabagabaysid oo videogaaga basekiisina soo dhistay advancekiisina aad dhistid waxaa samayn kartiin marka publish ku dhufanayna annaga publish ku dhufanina videogeenan ma noqon doono mid YouTube laga daawan karo sidoo kale markaan publish ku dhufano videogeena isla markii diyaar ma noqonayo shirkadda oo YouTube ayaa waxay sameynaysaa in ay fiirido bal inuu ku habboon yahay in bulshada loo gudbin karo kadibna uu ku ogolaan doontaa waqti kadib so publish ayaan ku dhufanayna marka ku dhufana kadib wuxuu leeyahay your video has been published waa la geliyay videogan hatta haddaan ku dhufano linkigan yarka wuxuu nagu xiri doonaa YouTube videogeena YouTube ayaan toos uga daawanaynaa bal ku dhufan so videogeena waa kana waayo inoo soo galay isagoo magaca u bixina leh Soomaaliya iyo description-kii iyo wixii aan siinay sidaas ayaa loo soo gelin karaa YouTube video sidoo kale insha Allah taala isbuucyada soo socda waxaan sii wadi doonaa casharada ku saabsan YouTube-ka anagoo baran doona sida looga saari karo YouTube-ka videogan aan soo geliyay sida uga saari karo sidaan u edit gareyn karo iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeelaynaa casharkeena caawa oo aynu kusoo qaadanay sida aad video u gashan kartid aaladda YouTube-ka waxaan ka codsanaynaa inaad casharkan sheergaraysid si Soomaali badan ay uga faa'iideystaan kuwaas oo u baahan in ay geliyaan YouTube-ka video ee ay iska leeyihiin sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inaad page-keena Lexertin kaasoo aad habeen walba casharada kala socotaan inta aan ku kulmi doono casharka xiga isbuuca soo socda waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh